soddon sano ka hor 26 January sanadkii 1991 si toos ah ayay meesha uga baxday dawladnimadii iyo kala dambeyntii dalka Soomaaliya. inta badan waxay eesatay jamhado iyo siyaasiyiin xukunka ka tuuray dawladdii kacaanka oo aan qorshe qaran oo dalka lagu badbaadiyo lahayn, iyo kacaankii oo laftirkiisu isku dhajiyay kuraasta ugu sarreysa ee dalka, lana yimid gaboodfallo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha. midayn la'aantii ka dhex jirtay safka jamhadaha kala duwanaa ee dalka, gaar ahaana UNC, SNM, SSDF iyo SBM, waxa ay keentay in taladu ay baahdan lana waayo sharciyad dawladnimo cid haysata. natiijaduna waxa ay noqotay siyaad baxyayaa soo celiya kadib markii qax, barakac, dagaallo sokeeyo oo daba dheeraaday dalku uu galay. qabiil jamhadaha dhexdoodu ay isku laayeen, boqolaal qof oo Soomaaliyeedna loo dilay keliya inay haybtoodu tahay qabiilka ay ka soo jeedaan oo iyagu doorashadiisa bilowgii aysan lahayn. 30 sano kadib, caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa looga dhawaaqay shalay golaha badbaado qaran, kaasoo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin ka soo farcamay jamhadihii 1991 riday dawladdii kacaanka, qaybtoodna ay qayb ka ahaayeen dawladdii kacaanka. haddana dib u heshiisiin ayay waayeen dhammaan dhinacyadaasi kadib markii uu Muqdisho ka baxay Siyaad Barre. kama hadlayno qorshaha kudladda cusub ee ka soo xuubsiibatay 4 magac oo midba dhowr milood soo shaqaynaysay ama soo qaadatay. hase yeeshee, tanaasul la'aantii ka dhex tirtay jamhadihii ku midaysnaa xukunka tuurista Jaale Siyaad Barre iyo isuquuri waagoodii xukunka waxa uu keenay in talada dalka loo dhiibo Cali Mahdi Maxamed oo ka yimid bulshada rayidka ah, ahaa ganacsade iyo qunyar socod, ugu dambayn toddobaadkii hore dunida idleeyay ama geeriyooday. qayb ka mid ah jamhadihii SNM iyo SSDF oo ka cararaya UNC iyo hogaamiyahoodii Caydiid ayaa si shirqool madaxweyne ugu aqoonsaday Cali Mahdi kadib taladii odayaasha manifesto. Cali bil gudaheed ayaa hogaankii loo dhiibay u lumiyay. xal dawladnimo waa keeni waayay kadib markii ciidanka qaranka gacanta xukuumaddiisu ay ku burbureen. waa boogta dawladnimo ee Soomaaliya ay la soo kaban la'adahay ilaa waqti xaadirkan. waa mid ka mid ah hutumooyinka ugu waaweyn ee ilaa saaka loo tiirinayo inay ka soo kaban la'adahay dawladnimada Soomaaliya, sida ay marag furro badan oo taariikheed ku soo wariyeen qorayaal xilligaasi joogay oo wax ka qoray wixii dhacay. laakiin hadda 30 sano oo dagaal ah kadib, waxaa dhisan ugu yaraan haykal dawladnimo oo ku yimid kaalmo caalami ah, lagu soo unkay dalal shisheeye. waxaana markii ugu horraysay soo iftiimaya dhismaha ciidan haybad qaran leh oo hanan kara dalka. balse caqabadda ugu weyn waa nidaamka aan la isku waafaqsanayn ee federaalka Soomaaliya oo reero iyo qabiilo u gaar ah u dhisan, kana macaasho burburka dawladnimada sida ay ku doodaan ama qabaan dadka qaarkood ee federaalka diidan. Puntland iyo Jubbaland waxaa lagu eedeeyaa inay si cad u hortaagan yihiin qabsoomidda doorashooyinka dhaca dalka wakhtigan, sida ay marar badan ku eedeeyaan dhinacyada ay sahayaan. balse waxaa jira su'aalo qarsoon oo u baahan inaan bayaabino, kuwaasoo 7 qaybood ah, qeexi karana ugu dambayn sifaha 30 sano kadib la joogo. waa tan koobaad, mar kale miyuu dhismayaa 3 geesoodkii jamhadihii dalka cagaha u geliyey burburka dawladnimo ee dalkan golaha badbaadada qaran ee Muqdisho looga dhawaaqay? maxa uu ka duwanaan doonaa jamhadihii la asaasay waqti dhammaadkii Siyaad Barre? 2. damaca kursi doonka ee madaxweyne Deni iyo kii Xaaji Muuse Boqor xaggee ayay isaga eg yihiin waqtigan? ma dhab ayay noqon doontaa hamiga Siciid Deni ee madaxweyne ku meel gaar ah oo Soomaaliya ah kadib ku biiristiisii golahan oo dastuurka Puntland uusan u ogolayn? 3. aragtida hadda Maxamed Farmaajo iyo hafikirkii xukunka ee Siyaad Barre xiriir aan haybta ahayn miyaa ka dhexeeya? durba mucaaradka qaarkood waxa ay xiriirayaan ficiladii xilligaasi ee kacaanka iyo kuwa hadda. Siyaad Barre ma ogolayn nooc kasta oo doorasho iyo ka soo horjeedida. 4. hardankii waqooyiga iyo koonfurta Muqdisho miyaa mar kale soo laba kacleeyay? Rooblase ma Caydiid cusubba? isbahaysigii dooxada Jubba miyaa mar kale soo mirqaday?
dowladdii uu hoggaankeeda hadda haya farmaajo matii cabdiqaasin salaad xasan baa elitareya iyo afawarkii ma awoodda qarsoon oo beddeshay carabtii xusni mubaarak ee dowladdii carta taageeri jirtayba qoorqoor iyo kulan ma siyaasaddii goobaale iyo barre hiiraale ayay jilayaan toddobadaasi weerood waa 7 xubnood ama qodob oo aad ugu dul wareegaya xaaladda siyaasadeed ee wakhtigan marka la raaco hafikirka xubnaha kala duwan ee la baxay golaha badbaado qaran 30 sano oo tagtay Soomaalidu waxa ay wali u afduuban tahay siyaasiyiintii jamhadaha ka soo farcamay maxay u liqilaayihiin Soomaalidu dawladnimada tartan iyo doorasho ninka diidan dawladnimo iyo isxukun sidee ayuu u yeelayaa in isaga la aqbalo xukunkiisa lana doorto ama uu wax doorto Somali